assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, kusoo dhowaada muuqaal cusub. Maanta waxaan qaadanaynaa faa'iidada caafimaad ee leedahay toonta. Toonta waxaa ku jiro dhammaan qaybaha nafaqada, waxayna qani ku tahay fitamiinada sida fitamiin C, fitamiin B6, iyo thiamine, iyo pantothenic acid. Sidoo kale waxaa laga helaa toonta macdanta sida manganese, phosphorus, calcium, iron, iyo zinc sulfide. Toonta waxay sare u qaadaa difaaca jirka ayay sare u qaadaa. Waxaa aad ugu badan tahay fitamiinada sida fitamiin C, B6, iyo macdanta selenium iyo magnesium, kuwaasoo sare u qaadi karo difaaca jirka. Waxay horumarisaa caafimaadka wadnaha. Toonta waxayna yareysaa cadaadiska dhiigga, kolestaroolka, iyo dhiig-karka. Cilmi baaris lagu sameeyay waxaa lagu caddeeyay in toonta ay hoos u dhigto dhiig-karka iyo kolestaroolka. Waxay la dagaalantaa toonta allergikada. Toonta waxay ku jiraan maaddooyin la dagaallama fayraska iyo inflamationka caabuqyada, kuwaasoo jirka ka caawiyo in ay la dagaalanto noocyada kala duwan ee allergikada ama xasaasiyadda. Waxay ka hortagtaa ama ay yareysaa qaybo ka mid ah kansarka jirka ku dhaco ama kansarka qofka bini'aadamka uu soo weeraro. Toonta waxaa ku jiro maaddooyin la dagaalanto bakteeriyada, gooryaanka, iyo fayraska. Toonta waxay u fiican tahay dadka qaba sonkorowga ama cudurka loo yaqaano macmacaanka ama macaanka sonkorta ee Latin ahaan lagu dhaho diabetic. Gooryaanka caloosha ku dhasha ayay dishaa toonta. Toonta siyaabo kala duwan ayaa loo isticmaali karaa. Sida u isticmaalaysid waa inaad ogaatid. In aad sideeda u cunto. Sidoo kale in aad shiido ayaa waxaad ku darsan kartaa 2 qaando oo malab ah. In aad karkariso ayaa si gaar ah ugu cuni kartaa cuntada aad cunayso. Sidoo kale kareem ahaan waxaad u marsan kartaa haragga, sida dadka haragga ku leh cambaarta iyo nabraha ay keento jeermiska fangaska. Cunidda toonta iyo basasha waxay keentaa in uu qofku cuno oo aad ugu soo urto. Mana jiro habab gaar ah oo gebi ahaanba lagu joojin karo urta toonta iyo basasha, balse waxaa jira siyaabo uu qofku ku yareyn karo urta badan ee toonta. Inta aadan cunin, karkari toonta cunto ku kari si ay u yaraato urta toonta. Sidoo kale isticmaal markaa cunayso kadib biyaha afka ku luqluqo sida maadada loo yaqaano chlorine dioxide mouthwash oo afka lagu luqluqo karo. Waxaa kaleeto u garan kartaa Temptum mouthwash, waa isticmaali kartaa iyadana. Sidoo kale waxaa adeegsan kartaa essential oils. Meel wax yar biyaha inaad ku shubato ayaa waxaa ku karkarsan kartaa 3 dhibcood oo saliid ah oo essential oils ah. Ku luqluqo, isticmaal kadib toonta. Cunista toonta kadib waxay wanaagsan tahay in qofka uu dib u cadaysto isla markaasna uu isticmaalo xaajada. Biyaha badan. Ugu yaraan waa inaad cabtaa biyo badan, ilaa 2 litir ilaa 3 litir oo biyaha waa inaad cabtaa si ay u yaraato toonta maalin walba, maxaa yeelay cabidda biyaha waxay hoos u dhigtaa urta toonta. Cunidda toonta kadib waxaad isticmaali kartaa green tea oo koob caano ah inaad ku cabto ayaa isticmaali kartaa. Cab 1 qaando apple cider vinegar cunto ah ka hor iyo kadib waa isticmaali kartaa. Halkan ayaan kusoo koobaynaa cashirkeennii
tuunta ee ka waramaysay caafimaadka faa'iidada ee u leedahay tuunta. Wabilaahi towfiiq, is aragti dambe oo xiiso leh. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.